وارون أفرتي سنة ومر إن الدورشة عدو وحي مهم أتاهي لفتبرنا أتاهي اسمها النبضة إيدوليمية الصومالية ما هي أتاهي وحن هلي ناون وقان نقص سعر دبعتها هذي عجلت اسبدل كيسونيس haddaba rajo nuucee ah ay ka qabaan shacabka Soomaaliyeed in la doorto musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur intaan ka ogsoonahay waa ninka isleeyahay oo ugu habboon yahay inuu qabto xilka madaxweyne rajada aan ka qabo in Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame uu ku soo baxo madaxweynenimada Soomaaliya waa rajo aad iyo aad u sareysa waxaan rajo weyn ka qabaa inuu soo baxayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur sanadkan oo biliinka lagu soo aadan Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa aaminsan hadduu ku soo baxo in siyaasadda Soomaaliyeed wax badan ay iska bedelayaan caburinta ay dhamaanayso musuqmaasuqu waxaan isleeyahay waa ninka koowaad ee maanta ugu cadcad bulshada Soomaaliyeedna ay aadka u naawileyso in uu u noqdo madaxweyne bulshada qaybaheeda kala duwan min caasimad iyo min gobol ayuu codkooda si kalsooni u haystaa marka aad baan u rajaynayaa inuu sanadkan soo baxa kalsooni aad aan qabaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame waa ku habboon yahay madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo aniga oo eegaya aqoonta uu leeyahay dawlad dhiska Soomaaliya waxay u baahan tahay in dawlad dhis la sameeyo institutionskana la dhiso tani waa tilmaam weyn oo marka la soo koobo qaadanaysa erey macno weyn Soomaalida xilligan ugu fadhiya baahi weyn ay u qabaan Soomaaliya 4 sano ee soo socota uma baahna siyaasi xukunka laambada go'doon siyaasadeedna dalka geliya waxayse u baahan tahay dulqaadka iyo dad isku wadka musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur go'aanka kala doorashada 4 sano oo ka wanaagsan 4tii sano ee hore ama 4 sano oo ka liidata 4tii sano ee hore waxay gacanta ugu jirtaa baarlamaanka cusub ee la soo dooran doono